يضر يا إسحاق أنت ذلك جوكتي أنت دافع عالم كجوكتا عيدا يا شعب لما أنتين waxaan idinku salaamayaa salaanta aan kor ku soo xusay oo cabdilaahi maxamed rawle ninkii gabay xariir walaalayaal aad golaha ugama soo yeelaa hadlo markaan arkay xaaladda taagan sida aan loogu baraarugsanayn iyo waxa inagu dhacaya sida aan looga falcelinaynin iyo meesha aynu u soconno ama laynagu wado sida aynaan u fahansanayn inaan war soo dhigo iyo inaan wax sheeg golaha kaga soo qayb galo aad iyo aad baan runtii u koobay salaantaasaan marka hore u soo galay guud salaan ka bacdi ilmaadeeryaal waxaa ogeydeen ummaddu haddii aanay il dheerayn oo aanay meel dheer wax ka arkayn waxaa fiican meel dhow ama waxa markaa dhacaya inay fahanto ilmaadeeryaal waxaa ogtihiin somalilan inay 4 cadow dagaal ku soo qaaday cadow dhul badan iska soo bahaystay oo dowladda maamulka faalsada ee Soomaaliya uu hormuud ka yahay iyo dowladda shisheeye oo dhaqaalaha la daba jooga iyo koox cadow ah oo magaca siyaasiyiinta inoogu soo gabaday iyo koox qowleysata ah oo magaca dhaqanka iyaguna bulshada ku soo dhex galay 4 cadow ayaa Somaliland xiriiriyay ka bacdi waa meesha waa laga saaray dowladdii xoogga badnayd ee talada Somaliland iyo jiritaanka Somaliland iyo horumarka Somaliland daacadda waxayde uu hogaaminayay madaxweynihii hore mudane Muuse Biixi Cabdi waxaynu ogeyn markii xabadullah sacaanood inaga bilaabatay in gudaha dagaal labaad lagaga curiyey oo markii xaaladdu inoogu xumayd xataa la abuuray jabhado ciidankii gudaha joogay ama gurman lahaa ama dhaawaca soo gudbin lahaa dhabar ka toogtay oo ay hal abuureen kooxda siyaasadda magaca siyaasiyiinta ee maanta talada Somaliland haysa iyo kooxda inagu matasha dhaqanka ilaahay inoogama dhigay markay halkaa taagan tahay ummaddu inay wax fahanto oo wax aragto oo halka laynagu wada eegto oo halka laynaga abbaaray eegto oo ay wax iska dhicisaa baa ku habboon laakiin doqoniinada iyo ceebta iyo dulinimada inay huwato daasato oo akhriyaad u baseeg waxaa ogeydeen nin suldaani inuu ka hadlay maalin dhoweyd xaaladda taagan isagoo u egeysinaya hadalkiisa mid jawaab u ah kelmadaha cadowgiina leeyahay waa nin sheegtay boqor oo yidhi waxaa la yidhahdaa boqor cismaan aw maxamuud buurmadow hadalkiisaasi ma ahayn mid jawaab u ah cadowgeynaga soo horjeeda ninkaa iyo Somaliland halkay kala joogeen waa la ogaa markii uu dalka soo galay ciro wax bay kala saxeexdeen heshiisay wada galeen kontraad bay kala qaateen ka bacdi kontraadkii si uu hirgeliyo hawlaha looga baahan yahay wixii loo sii daayay mooyee wixii harsanaa ayaa hore ugu soo bixi waayey waxyaalaha adduunyada ka dhacda kambani kontraad qaata oo ciddii uu dhaqaalaha ka qaatay shaqo wanaagsan u qabta ka bacdina mushahaaradii la wada siin waayo ka bacdina yaraada shaqa joojin ayaan samaynayaa ninkani warbixintiisaasi waxay daaranayd inuu la hadlo isagoo u duur xulaya cabdiraxmaan ciro markuu imaaraadka ka soo noqday ninkaa wixii ka xidhnaa ama hantidii u harsanayd waa u sii daayey ka bacdina wiigan markuu dalka yimi wuxuu ku jawaabay warkii hore war ka bedelan oo ah heshiiska la gaadhay ee dowladda Somaliland hogaaminayso waa si boodhay waana taageere labada hadal bay soo afqi karaan afsima ka wada iman karaan waxaa jirtay nin ka horreysay oo hadlay oo yidhi madaxweynuhu hadduu bixin waayey waddada qorolugudi iyo wadaamagu isku xidhan dhaqaalaheedii waxa aanu ka shanleeyo
ayaan ku samaynayaa. hadduu hadlaayay waddada isku xidho Qorolugud iyo Wadaamagoy maxaa ku soo beegay wakhtigan? imise sannadood oo ka horreysay oo dalku xasiloonaa oo degganaa ayaa waddada Qorolugud ay taagnayd. muxuu uga hadli waayey maalintaa? muxuu uga hadli waayey maalintii Siinaayo la doortay hadduu wadda jacayl iyo dal jacayl inuu ku jiro? muxuu uga hadli waayey maalintii Riyaal joogay? muxuu uga hadli waayey maalintii Xaaji Maxamed Ibraahim Cigaal joogay? muxuu uga hadli waayey maalintii Cabdiraxmaan Axmed Cali joogay? hadalkiisaasi wuxuu u dhignaa aniga iyo dadkan matela waxaanu ku biiraynaa kooxaha dagaalka kugula jira, waxaanaanu kugu qaadaynaa dagaal cad. iyadoo u muuqata madaxweynaha markii 4 koonaba dab kaga karay inaanu maanta gacanta ku dhigi karaynin, amase uu yacnihii xor u yahay afkaartiisa iyo waxa uu aaminsan yahay. waxaa arkaysaa cadowgii dagaalka inagu soo qaaday ee ciidankeena laayay ee dhimashada iyo dhaawacabayna gaarsiiyey ee ciidamadeennu ay qabqabteen isaga iyo hubkiisiiba in la yidhi sii daayo ooda ka qaada bilaa shuruud. waxaa arkaysaan deegaanadii cadowga aynu ka saaray ee ka muquuranay ee intaasoo haliyey ku dhimatay oo la leeyahay cadowgii baa la soo gelinayaa ee daaya. waxaa arkaysaan ciidamadii madaniga ahaa ee taageerayay ciidanka qaranka lafdhabarta u noqday ee difaacayay dalka iyo nabadda iyo shacabka oo la leeyahay waxaa ku soo biirtaan si aanu mushaar idiin siino ciidamada qalabka sida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa kii marka gamcaha laga xiray ee birta laga aslay ee hor iyo dib akhriya adduun labadaba la seejiyey. markay halkaa taagan tahay Somaliland maanta waxay kala dhex joogtaa inay dhimato oo la aaso oo sidaa magaceennii iyo jiritaankeenii lagu soo afjaro, iyo in fadhiga laga kaco oo dhiigga loo xidho oo la iska dhiciyo kaxabadda sita aynu iska soo horjeednaa shaaheenna maaha. cadowga taladii Somaliland maanta la wareegay hadduu yahay mid siyaasad ku soo dhex gabaday iyo hadduu yahay mid dhaqanka bulshada ku soo dhex gabaday, labadaa in la iska rido oo si ficil ku jiro la isaga rido oo gacan bira lagala hortago ayaa maanta Somaliland ku badbaadi karta. waxaa arkaysaan dhakhtarkii gobolka Togdheer oo xidhmay ayaa ka dambeeyey xukuumadda maanta talada haysa ka dambeeyey, iyadoo u durxulaysa dadweynuhu awalba dhulkaas ay shilinkooda ku tegayeen oo silcayeen ciidamada madaniga ah iyo ciidamada qaranka cusbitaalka la soo dhigayo dhaawacooda inaan la bixin kirada leydhka si shirkaduhu ay u goostaan leydhkooda. marka ciidamadu meel ay isku haleeyaan oo caafimaad ahaan iyo dhakhtar ahaan loo soo dhigo ay waayaan. cidda hal abuurtay waa xukuumadda maanta talada Somaliland joogta. cashuurta dalka ka soo baxda ciidamada madaniga ah ee difaaca ku jira ee hilbadiriraya ee Somaliland iskood iyo ikhtiyaarkood sida mutadawacnimada ugu dagaalamaya ma qaataan dhaqaale, daawada iyo rasaasta iyo saanada iyo saadka intaba waxay xaq ugu leeyihiin dowladda Jamhuuriyadda Somaliland, khaasatan xukuumadda joogta. haddii loo garan waayey waxay xaq u leeyihiin cashuurta ka soo baxda deegaanadooda iyo dhaqaalaha Somaliland ka soo baxa iyo ka caalamku ina siiyo inay si xor oo xalaal oo sanduuqa barkooda u helaan. ma dhici doonto in hodheel ku cuna albeerkana ku kiraysta inuu keligii dib isugu koobo. hadday horu dhacday dib u dhaqan geli mayso. waxaan u soo jeedinayaa ciidamada geelamayaasha hadday madani yihiin iyo hadday kuwa qaranka yihiinba inay isu taagaan maanta Somaliland jiritaankeeda iyo nolosheeda iyo badbaadinteeda. adduun magac baa ka hadha inaanay ka samrin 34 sannadood waxay ku dooriyeen dayaxba waayeen si fudud inaanay gacantooda uga bixin. gobonimadu waa in yar oo cagaha dhulka lagu sii adkeeya. aad baan idin salaamayaa wabillahi tawfiiq.